I don't want to stay in Nepal anymore, and I cannot live in Nepal because I have a financial problem. That's the main thing. Ibrahim Shiikow iyo Suleeqa Cumar waxay ka soo carareen nolosha cabsida badan ee ka jirta dalka Soomaaliya. Waa xaas da'yar oo 20 jir ah waxa ay dadkoodii iyo waalidkood uga soo carareen Soomaaliya iyaga oo xusuusta dilka arxan darrada ah iyo gumaadka lagu hayo dadka rayidka ah ee ka jira dalka Soomaaliya. Kooxaha Islaamiyiinta sheegta ayaa dagaal ku qaaday deegaanadii ay ku noolaayeen oo ka barakiciyay waxaana ay lacag $10 ah siiyeen dadka wax tahriibiya si ay u geeyaan qaaradda Yurub oo ay qaxooti ahaan ugu galaan balse halkan oo ah dalka Nepal ayaa lagu daadiyay. Waxay soo gooyeen 10,000 oo kiiloomitir halkan oo ah meesha ay baqashadu ka soo riday waa dalka Nepal oo ka mid ah dalalka dunida ugu faqrisan oo ay hadda si sharci darro ah ku joogaan. I don't want to stay in Nepal anymore, and I cannot live in Nepal because I have a financial problem. That's the main thing. Again, I don't have passport or travel document, or I come back to my country. Ma doonayo inaan sii joogo dalka Nepal, kamana tagi karo oo waxa ay haysta arrimo dhaqaale, waana arinta ugu weyn. Marka xiga ma haysto baasaboor ama waraaqaha socdaalka si aan dib ugu laabto dalkayga. Qol yar ayaa qoyska Ibrahim oo ka kooban isaga iyo xaaskiisa iyo wiil yar uu dhalay waxay ku wada nool yihiin oo ay wadaagaan qoys kale oo Soomaaliya. Waxaana iga muuqda ciriiri daran oo ka jira qolka oo aan ku filnayn qoysaska wada degan. Waxaana uu Ibrahim ii sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay qaxooti ahaan uga diiwaan gashan yihiin hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ee saldhigeedu yahay dalka Nepal. balse marka la eego dowladda Nepal ayaan iyadu siinin dadkan qaxootiga ah warqadaha aqoonsiga qaxootinimada waxaana dowladda Nepal ay sheegtaa inaysan haynin dhaqaale ku filan oo ay dadka noloshooda ku kafaala qaadi karto waxa lagu qasbaa dadkan qaxootiga Soomaalida ah in si sharci ah ay ku joogaan dalka Nepal taasi oo ah in hab dalxiis ah isku diiwaan galiyaan oo ay noqonayso in maalin waliba laga qaado lacag dhan $6 taasi oo aysan awoodin Ibrahim iyo Soomaalida kale ee la midka ah. For the Nepalese government, these people are basically illegal immigrants staying in Nepal. We do not want to be viewed by the international community as being a hub or transit for international traffickers. Innaga dawladdeena Nepal waxaan aragnaa dadkani in si sharci darro ah inay ku joogaan dalkeena. Innagu ma doonayno in caalamku ay noo arkaan dadkan iska safra ee sharci darrada ku socda ay iska yimaadaan ama iska maraan. Mana hayno runtii dhaqaale aan noloshooda ku kafaala qaadi karno. Mustaqbal la'aanta haysata dadkan qaxootiga Soomaalida ee jooga Nepal iyo dhaqaale xumida haysata Ibrahim iyo Soomaalida la midka ah ee aysan dalkoodii dib ugu laaban karaynin ayaa ka dhigtay kuwa mar waliba niyad jabsan oo aan deganayn waxaana sida Ibrahim oo kale qaarkood halkan ay joogaan in ka badan 4 sano waxa marka la eego qaramada midoobay dhankeeda ay sheegaysaa in inta badan dadkan ay xaq u leeyihiin inay helaan dib u dejin gaar ahaan dadka kiisaskooda lagu qanci karo laakiin qaxootiga intooda badan waa inay halkan sii joogaan. It's true that they're not able to work, so because of that UNHCR gives them a monthly allowance, and in addition we give them free education so the children are able to go to school, and we also provide with free health care. Waa runta dadkani ma awoodaan inay shaqeystaan sidaa darteed ayaa ah sababta UNHCR ahaan bil walba siino caawimaad yar oo dhinaca nolosha iyo waxbarashada ubadka ah waxaan ka bixinaa kirada guryaha waxaa sidoo kale siinaa adeeg xagga caafimaadka oo aan ka bixino. Tani ma aha nolosha Ibrahim iyo xaaskiisa Suleeqa ay u doonayaan wiilkooda yar ee 2 jirka ah halganka nolosha oo adag iyo qarashka ay siisa qaramada midoobay oo dhan $115 oo kaliya ayaa dadkani waxay ka doorbidayaan inta ay joogi lahaayeen halkan oo ah Nepal inay dib ugu laabtaan dalkoodii oo laga caawiyo sidii ay ugu noqon lahaayeen halkaasi.